dagaal xoogan ayaa saaka aroortii hore ka qarxay magaalada Baxdo ee bariga gobolka Galgaduud kadib markii ururka Al-Shabaab ay weerar ku soo qaadeen magaalada. Dagaalka ayaa u dhaxeeya dadka deegaanka iyo dagaalyahano ka tirsan Al-Shabaab oo soo weeraray magaalada, waxaana ka dhashay khasaare dhinacyada dagaalamay soo kala gaaray iyo sidoo kale hubka la isku adeegsado oo burbur magaalada qaybo ka mid ah soo gaarsiiyay. Waa bariga hore oo bulshada Baxdo ay ku soo tooseen dhawaaqa daryanka hubka culus ayaa sheegay qaar ka mid ah oo warbaahinta la hadlay in dagaalkaasi ay ku jabiyeen Al-Shabaabka soo weeraray magaalada. Dagaalka u dhaxeeya dadka deegaanka ururka Al-Shabaab ee ka dhacay Baxdo ayaa socday in ka badan 3 saac, waxayna dadka deegaanka isugu jira culimada iyo qaybaha kale ay ka guuleysteen Al-Shabaabka weerarka ku soo qaaday. Muddo ka badan 3 bil ka hor ayay ciidanka dowladda iyo kuwa Galmudug intooda badanba ay isaga baxeen magaalada Baxdo kadib dagaaladii ka dhacay bariga gobolka Mudug, si gaar ah deegaanada Camaare iyo deegaanadii kale ee ku hoosteysana sanadkii hore 2021 oo ciidanka dowladda howlgalo ay ka sameeyeen iyo kuwa Galmudug bilooyinkii dambe looga gacan sareeyay dagaaladii Al-Shabaab ay kula galeen halkaasi. Dadka deegaanka ayaana ugu dambeyntii gudaha Baxdo ka saaray Al-Shabaabka soo weeraray oo uga adkaadeen dagaalkii ka dhacay halkaasi. bilihii dambe bulshada ku dhaqan magaalada Baxdo sida ayna ka soo xigana ayaa culeysyo xoogan kala kulmay ururka Al-Shabaab, taas oo ugu hanjabayaan in haddiisan amarkooda dhaqan gelin ay weerar culus ku soo qaadi doonaan. Ugu dambeyntii dagaalka saaka ka dhacay Baxdo ayana uga adkaadeen shacabka magaalada oo kaashanaya qaybo ka mid ah ciidanka booliiska ee ka howlgala magaalada Baxdo. ciidamo ka kala baxay magaalooyinka Dhuusamareeb iyo Cadaado ayaana saacadaha soo socda la qorsheenaya inay gaaraan magaalada Baxdo oo saaka shacabka ku dhaqan halkaasi Al-Shabaabka soo weeraray dagaalo xoogan oo ku dhaxmaray. Mahad Nuur Axmed, raadiyaha iyo TV-ga Dalsan, Cadaado.